waxaa alla subxaana wa tacaala ku tilmaamaya dunidan aad joogtaan waa la isku kiin itixaamaya oo waxaa la isugu kiin itixaamaya wajacalnaa bacdakum libacdin fitnatan atasbiruun baa ilaah yidhi wajacalnaa bacdakum libacdin fitna kooxba kooxdiin baan bal ku itixaamayaa baa ilaahay yidhi waa isku kiin eegayaa kuwiina mu'miniintaa waxaan eegayaa baa ilaahay yidhi atasbiruun marka laydin itixaamo bal inaad sabirtaan walidaalika iyadoo mu'minka la gubayo oo god lagu gurayay oo dab loo shitay ayaa ilaahayna wuxuu qur-aanku ku tilmaamayaa wallaahu waxa ay samaynayaan ilaahayna shahiidi idhum calayha qucuud wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud waxa ay mu'miniinta ku samaynayaan way u soo xaadireenoo way daawanayeen ilaahayna subxaana wa tacaala suuradda kuma sheegin wax ciqaabaya wax baloo lagu soo dejiyey dee wax walbana waa arkaya laakiin wuxuunbuu alla sifeeyey iyagu noocay ahaayeen oo ah inay dad dab ku guraya ahaayeen inay meesha fadhiyeen wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud waxay mu'miniinta ku samaynayeenna weliba ay daawanayeen oo aanay ahayn yacnii dad gaarun waxay sameeyeen oo aanay ogayne iyaga laftooduna ay daawanayeen ilaahayna waa arkaya subxaana wa tacaala bale qur-aanku waxaabuu tilmaamaya in jaanis toobad kalena loo sii furay ayaa alla subxaana wa tacaala tilmaamaya in kuwa fitnada ku sameeyey mu'miniinta uma lam yatuubuu baa ilaah yidhi yani kaana waxa alla sii tilmaamaya weliba inay jaanis kale leeyihin xadiidkii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu sheegay dadka sidii dabka loogu gurayey yaa lagu gurayaa dumar caruur nin weyn nin yar all classes mujtamac oo dhan looma kala aaba yeelaynin dhammaantood waa la gubayey dhammaantood waa la tumayey ayaa islaaniisa soo taagtay ilmo yar sidataa taqaacus yaro samayso dabkii iska yaro giijisay ilaahay kii yaraaya ay sidatay buu ka hadlayay subxaana wa tacaala ee wuxuu yidhi yaa umma isbirii fa innaki cala alxaq hooyoy sabir buu yidhi xaq baad ku taagantay su-aasha isweydiinta le markaa waxay tahay mowqifka mu'minka amaama alimtixaanaat waa maxay mowqifka mu'minka amaama alimtixaanaat waa weedhatan ilaahay wiilka yar ka hadalsiiyee ah yaa umma isbiri hooyoy sabir fa innaki cala alxaq wuxuu leeyahay ku sabir dabka gal ha lagu gubo laakiin xaq baad haysataaye xaqiyuu kaa lumay maxaa dadka loo gubaa ama loo dhibaa ama waxaan loogu samaynayaa yani waxaa lagaa rabaa waxyaabaha qaarkoodu aydan inaad isticjaal samayso o degdegto waxaan loo fadhiyay inaad samayso lagugu sii banaysto ama inaad tanaasusho oo wixii aad haysatay aad ka tagtid ama in lagu quusiyo qunuud kugu dhaco oo aad tidhaahdo waxba dee aakhiradeenna bal aan eegno wixii alla ka dhigata in lagu kala tegiy quusato is tidhaahdo filimkaanba kuma jirto wax la qabto hadhoo binaadam sameeyaa ma jiro wahaa hiya aafaati halaaa fi ariiq ariiqa mabaadi'da iyo diimaha saddexda aafooda ku dhaca waa kuwa kan inuu qofku degdego oo waxaan loo fadhiyay inuu la yimaado iyo inuu maxay inuu tanaasulo oo uu habaat la iman waayo u sugnaan waayo iyo inuu quusto oo qunuud iyo ya'si ku dhaco camalkiisa islaamiga iyo diintii iyo wixii wadayba uu faraa ka qaado wiilkan yari hooyadii wuxuu ku leeyahay ilaahay ka dhawaajiyay dharabtaa lagu sida hooyoy isbirii fa innaki cala alxaq sabir xaq baad ku sugan tahay